saddexda qodob ee badbaadada keentana nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam alqasd fi alfaqr walghina adila hurri العدل في الغضب والرضا markaad caraysan tahay iyo markaad raali tahayba markaad ruuxa cadow aad tihiin oo ku xanaaqsan tahay iyo markaad jeceshahayba cadaaladda ka tagin Soomaaliyeed ruuxan waan isleeyahay waan jeclahay cadaaladda uga tagin hebel waan necbahayna cadaaladda uga tagin noloshaada cadaaladda laazim khalqiga markaad la mucaamaloonayso cadaalad kula mucaamalo ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا علاad iyo carad dad kale idin ka dhaxaysa yeena idin ku xambaarin inaad ku xad gudubtaan ina cadaaladda ka tagtaan waan isnacibnahay culbaanahay waa isku dhacsannahay waan islaynay tayib wax kastoy tahay cadaaladda waa cadaalad kaad nacib tahay cadaaladda ka tagin kaad jeceshayna cadaaladda uga tagin ayada markay soo degayso waxay ku soo degaysaa gaalo war gaalo colaad idin ka dhaxayso yeena idin ku xambaarin inaad cadaaladda ka tagtaan iska badaa ruux muslima si kastood ruuxa u nacib tahay ha ka tagin cadaaladda kunu qawamina lillahi shuhadaa bilqist كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا حتى هذه النفط هذا تاي نفط هذا هذه عدالة دقشو نفط هذا كمر كاتفر يا قر إناد خلدن تاي إناد قردرن تاي نفط هذا كقر Soomaaliyeed labadaada waalid haday gardaran yihiin way gardaran yihiin de quraanka sida leh ku marqaati fur haday xigtadaadi iyo qaraabadaada tahay way gardaran yihiin oo khaldan yihiin ku marqaati fur ya tolka fiqi tolki kama jannata gahan noqonin ya tolka haday naarta ku daadanayaan naarta ha kula dhicin كهر هذي خلدين كهر كوح ذاته هذي خلدنتها كهر هذا القبن كرت قبو هذا القبن كريني عدالتها كتير سيدا سدرادين العدل في الغضب والرضا وان حناق صناع عدالته كتير حبل وان شعل هينا عدالته كتير سو غضب ما خلقك عدالة كل وضع قال كيسي مسلم كيس وبدبادو عدالة دا سمحا صلوة وحصلوها الضومضة انتات فيرسو نفط هذا وحادا ربين إن لغولا رقمه الضومضة هكولا رقمين ميزانك وكا سو النبي يقول في كما في صحيح مسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة روحي تشعل النار تلقفقيه شننا لقليه فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر قيردها أتما هذا يساقوا الله يمان انت آخر الرميسة بحاكو حيقا وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه تدك هؤلاء مادو هكولا رقمه وحو تشعليه يساقوا إن لقولا رقمه هذه ما حد تعيش إن لقولا رقمه حتى وناك إن لقولا رقمه دلقات إن لقولا رقمه نحريس إن لقولا رقمه عدالة إن لقولا رقمه إن لقونا تشيو ضدك نسيدو كلا ويال نفط هذا كلا كسوقات ضدك صما عدالة دوتها عدالة ده إنصاف وكاسوة العدل في الغضب والرضا غضب كلا بعد اللي جبت بهذا حويان النبي صلى الله عليه وسلم القصد في الفقر والغنى هذا فقيرته يهدا تاجرته هيبه دحدحيسو نولشاده دحدحاد هنقطو هذا فقيرته هينا صبر oo ha u gudbin in aad faqriga iyo baahidu ay kugu xambaarto xaraan iyo khaladaad inaad gasho
haddaad taajirto qani tahayna ayadana noloshaadu dhexdhexaad ha noqoto oo waxaad iska ilaalisaa kibirka iyo israafka iyo xoolaha lagu tamashleeyo iyo isla weynan iyo khalqiga xoolaha lagu dulmiyo iska ilaali sooma haddaad faqiir tahayna sabir haddaad taajir tahayna shukri warku inta sooma yani wax way markaa xaalad labada xaaladood ba aday ku marayaan waxa ku maraysa xaalad aad baahantood faqiirtoo waxba haysanin xaalad kale waxa ku maraysa faqrigi aad ka baxdood wax haysato taajirta labada xaaladood waxa la rabaa inaadan ka tagin dhexdhexaadnimada midan faqriga ana sabir midda taajirnimada ah iyo qaninimadana shukri oo ilaahay u mahad cali khalqigana wixii ilaahay ku sii ihsaan uga samee wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk sidii adigaba ilaahay ihsaan kuugu sameeyay khalqigan aad jeeb dhaanto eed wax dhaanto ihsaan u samee ilaan adigaba ihsaan baa lagu sameeyay Soomaa dadka la kama jecla waxa lagu siiyay waa imtixaan sidaas daraadeed khalqiga ihsaan u samee xoolahana ha ku kibrin isla weynaanin masaakiinta ka warhay ka baahan ka warhay haddaad la noolaan kartana la noolow ya nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu aad u jeclaa inuu masaakiinta iyo dadka baahan ku dhex noolaado la noolaado sallallahu alayhi wa alihi wasallam maxaa yeelay dadkaas oo la noolaado noloshaada wax badan bay ku kordhini sida hadda leeyahay si ka duwan waay hadda ruuxu maalinkii shilin u kordho ya dadkii hore saaxiibadiisa waa ka guuraya soo saasma xaafadii uu ku noolaa waa ka guuraya waa dalacaya markii waxoogaa u sii kordhaanna saaxiibadii hore oo dhan waa bedelaya qolo cusub buu samaysana xaafadihii hore oo dhanna lagu arki maayo waa ka sii tagahaya ya laana xoolaha yeelaya ما يصيرش معها ورصودح فريسو ساكين تصودح فريسو لن نولش هذا وحوجا وحين نقول يسا بالانس ويسود اللي ترميسا لكن هذا حقه ونصي فوفته ويكون تجي سمارت سيداس درادت نولل دحدحادا نولو هذا وحيستوي هذا قتم طيبه ايو النبي قالوا تلمامه يا صلى الله عليه واله وسلم بدبادو ساسوال هذا دنكن ودعدنا وهلاك هذا دنكن وبدتنا وهلاك دحدا كسو عمر قضبك قدام بين النبي قالوا بدبادو كتلمامه صلى الله عليه وسلم وحوي خشية الله في السر والعلانية إن الإلهي كبقضه هداد كليغات تاهي أو قرصون تاهي إيه هداد موقتو ضلت شوكتبه إلهي عبسيديسا قلبي قاقها كتشرتو محاسا لولي هاي دادك غار واحد شراء مركي دادك لا جوغان ودادك دح جوغان حشوضة أو بقى أو وناك كموقت markay kaliyeestaana way cidlaystaana xumaanta sameeya kaasoo kale waxaad moodaa malaha markaad dadka la joogto ilaahay ku arkaya miya markaad kaligaa tahayna kuma arka miya ya allah tabaaraka wa tacaala xaalad walba waa ku ogyahay saas daradeed inaad mar walba muraaqabayso mar walba qalbigaaga ay ku jirto ilaahay waa ku arkaa nabigeena wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam oo sheegay dad maalinta qiyaamada imaan doona oo la imaan doona khayraad iyo acmaal waaweyn oo buuraha waaweyn leeg ya buulaha tihaama leeg maalinta aakhire imaan doonaan acmaashii waaweyneyd oo soon lahayd oo salaad lahayd oo xaj lahayd oo sadaqa lahayd oo khayraad lahayd ayaa waxaa laga dhigayaa sidii busta la daadiyo oo kale iyaga dhan waa la saydhayaa wixii buuraha la ekaa waxaan jirin baa laga soo qaadayaa ooyeyhi nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waa dad idinka mid ah luqadiinana ku hadlaya habeenkii saad u tukataana way u tukan jireen salaatu leyl bay tukan jireen laakiin markay dambiyada la keli noqdaan
yay dembiyada geli jireen ya markuu cidloobo ayuu qastaa dembiyada markuu dadka dhex joogana wali ilaahay uu iska dhigaa saalixa meesha maxaa ka muuqda marka ilaahay muraaqabadiisii baa ka maqan sidaas daraadeed haddaad dad la joogtay haddaad keligaa tahayba ilaahay ka xishood ilaahay waa ku arkaa meel walbe ittaqi llaha xayثuma kunta rabbigaa ka xishood nabigeena sal alla alay wasalam ay saxaabadu weydiiyeen rasuulka ilaahay ow cawraatuna maa na'tii minha wamaa nadar cawradannada maxaan muujinaa maxaanse qarinaa nabigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam cawradaada yaysan arkin ilaa xaaskaaga iyo addoontaada mooye markaasaa wuxuu yidhaahday rasuulka ilaahay oo ka warran haddaan keligay haddaan ahay dharka ma iska dhigan karaa nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam faallahu axaqu an yustaxyaa minhu min annaas ilaahay baa cid walba ka mudan in laga xishoodo soo maa qolkaaga aad degan tahay keligaa markaad ku jirto kuu xidhan yahay inaad calallada dhan dhigatood isqaawiso oo yaa ku arkaayo il bini aadanoo ku haysa ma jirto laakiin allah mudan inaad ka xishooto soo saas maa saas daraaddeed haddaad keli tahay iyo haddaad dad la joogtaba ilaahay tabaaraka wa tacaala ka baq oo qalbigaaga ha ku weynaado oo wixii uu rabbi raalli uusan ka hayn iska ilaali wixii rabbi jecel yahayna ku dadaal qodobadaasi saddexda ah iyaguna waa badbaado kulligoodna waxay ka hadlayaan nolosheennay ka hadlayaan waxyaalana waxyaalo dhib leh waxyaalo dheef la waaye waa dhaqamo waa akhlaaq wanaagsan waxna waa akhlaaq xun waaye marka tawfiiqda allah ina waafajiyo ilaahayna tabaaraka wa tacaala asbaabta lagu halaagsamo haynaga ilaaliyo asbaabta badbaadadana ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna waafajiyo jazakum allah